soo dhawaada akhyaarey sheekada maanta waxa ay taagan tahay sheeko cajiib ah oo dhacday sanadii 2001 saddexdan gabdhood muuqda waxaa laga afduubtay gurigooda da'dooda marka ay ahayd 21 sano jir. Amanda, Michelle iyo Gina waa laba gabdhood oo da'doodu tahay 20 sano jir iyo midda ugu weyn ay tahay 21. waxaa muddo 10 sano u afduubnaayeen nin maxbuus hore u ahaa jiray magaciisa lagu magacaabo Ariel Castro asal ahaan Brazilian ah. Sheekada Amanda waxa ay baraha bulshada qabsatay sanadkii 2018 marka ay soo saartay buug ay kaga hadlayso 6 sano guuradii kasoo wareegtay afduubkeedii qaatay 10 sano laguna kacayay jirdilka, humiliationka iyo weliba tacadiga xadgudubka bini'aadamnimada intaba. iyadoo ka sheekeynaysa noloshii 10 sano afduubka waxa ay tiray waxaan 10 sano ugu muhiimsanaa nolosheeda aan ku soo qaatay guri kaliita nolosha xabsiga aan dhihi karo weliba maalin walba waxaan u qornay in aan la kulanno jirdil, xadgudub iyo weliba humiliation wax aanan horay aan ugu fikirin inay u dhici doonaan. way nagu adkeed inaan kasoo baxsano guriga sababtoo ah qaabka uu dhisan yahay guriga ayaa waxa uu ahaa qaab ay adag tahay inaad fahanto irida meesha ay ku taalo. dhan walba waxaa kaa xigo mugdi iyo jaranjar aan dhammaad lahayn. saddexdiina waxaan ku kala xirnayn 3 goobood. waxa keliya aan ku xiriiri jirnay waxa uu ahaa dhawaaqa jugta qofka kale la gaarsiinayo, taasi oo i xaqiijinaysay qofka xiga inaan anigu ahay ama ay tahay saaxiibadayda. marxaladuhu halkaa ka jiray aad bay ugu adkaayeen, wayna adag tahay ka sheekeynteedu, waana ka xumahayn gabadheedu waqtigan qaangaar ah ay maqasho marxaladda aan anigu soo maray. waxaan rajaynayaa inaysan gabar kale la kulmin dhibka oo kale. sidii aan ugu jirnay dhibaatada waxaan mar qura helnay fursadii aan ku baxsan lahaa, waxaana ka helay dhanka iyo irid markaa laga soo gelin jiray cuntada. fursadaas ay heshay Amanda waxay ka dhigtay qof xuroobay, waxa ayna fursad u heshay inay la xiriirto booliiska isla markaana si degdeg ah ayaga xogtooda ay ula wadaagtay, taasoo fududeysay in si degdeg ah loo yimaado goobtii marka ay ku xirnaayeen. guriga horarka ahaa waxa ay ka soo baxeen sanadkii 2011. sheekadan waxa ay aad baraha bulshada u qabsatay sanadii 2018 marka ay Amanda soo saartay buug ay kaga hadlayso noloshii 10 sano ee ku soo qaadatay afduubkii ugu xumaa ee qof bini'aadan ah uu la kulmo. afduubka ninka geystay Ariel Castro waxaa lagu xukumay xabsi daa'im ah, ugu dambeynna waxa uu isku daldalay xabsiga gudahiisa. Amanda iyo saaxiibadeeda kale waxa ay afduubkii guriga ka soo baxeen iyagoo da'doodu tahay 30 iyo weliba Amanda ugu weyn tiimka marka afduubka oo ay ahayd 31 sano jir.